cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta loo soo gabagabeeyay tababar in muddo u socday waxaana xiritaankii tababarkan ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ku-xigeenkiisa Cabdisamed Cali Shire iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada Puntland General Saciid Maxamed Xirsi. ciidamadan ayaa dowladda military ku soo bandhigay xorada 54 waxaana gaada ka ciyaarkooda si weyn ula dhacay madaxdii daawanaysay ugu horeeyo Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed madaxweynaha Puntland. General Saciid Maxamed Xirsi ayaa ka sheekeeyay ciidamadan iyo weliba waxa ay ka qaban doonaan xuduudaha Puntland waxaana uu tilmaamay in ay difaaca Puntland ay qayb lixaad ay ka qaadan doonaan. madaxweynaha waxa sharaf noo ah qiimo weyn noo ah mudnaan iyo sharaf inaad nagala soo qayb gashid maanta xafladda tanqiimaha iyo qaadaha leh oo ah xiritaankii difcaddii labaad ee tababarka ka baxday ee sanadkan tababarkaas oo had soconayay muddo 4 bilood oo wax yar dhiman si sharaf lana dadkii tababarka qaatay oo hadda hortaada fadhiya si wadaninimo ah si dadaal ah si xiskalnimo ah si dhiirigelin ku jirto si uu fakarid cadow ka dameeyo oo buri cadowga dalka inay buqunta iyo wadnaha gooyaan loogu talagalay ayaa loo qaatay tababarkaas. madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ayaa ku amaanay ciidamada Puntland sida ay uga shaqeeyeen ammaanka waxaana uu tilmaamay in ay ka guuleysteen cadow soo wajahay buuraha leyda galgala taasna waxa uu ku tilmaamay tababarka baaxadda leh ay qabaan. Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ayaa waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda laga doonayo ciidanka waxaana uu kula dardaarmay waxyaabaha ciidanimada burin kara in ay iska ilaashaan. madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ayaa guddoonsiiyay shahaadooyin iyo weliba jaayisooyin kale oo ku farxaan kuwoodii ugu sarreeyay iyadoona ay xusud mudan tahay in ay kaalinta koowaad ay gashay gabar ka mid ah ciidamada Puntland taasna waxaa ammaanay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed isagoona kula dardaarmay hablaha kale ee Puntland in ay qortaan ciidanimada maadaama ay maanta ay gabar ka mid ah ciidamada Puntland ay gashay kaalinta koowaad. dhismaha ciidan adduunka oo dhan waxa weeye dawladnimada tiirkeeda koowaad weeye sida tiirarka islaamka tiirka ugu horeeya waa shahaadada dawladnimada shahaadada ugu horeysa waxa weeye in ciidan jiro waxa la inii tababarayaa culayska la inii saarayaa maaha jirdhis maaha inta qofka la tababaro hadhow geela raaco oo meesha doono aado waxa weeye naftiisa iyo ilmihiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa inuu daafaco oo ka daafaco cadowga burburinaya Puntland cadow gaar ah waliba sii leedahay waad ogtihiin ciidamadaas hadda ka sheekeeyay cadowgii koonfur laga soo ceyrshay wuxuu soo galay in badan oo ka mid ah gobolladeena soo gashay waliba khusuusan halbowlaha dhaqaalaha oo magaalada dekedda ah iyo Puntland ay ku taamto oo asaasiga u ah magaalada Boosaaso buuraha ku hareeraysan dagaal baa laga galay 2010kii waad jabiseen baan ka guuleysanay Axmed Awil Jaamac Royal TV Garowe.